ciidamada hadda loo jeediyay Israa'iil ayaa waxa soo cusboonaysiiyay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee maamulkaas waraysi uu bixinayay su'aal laga weydiiyay in maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyadaasi ay la kulmaan jirdil iyo tacadiyo ka dhan ah galmo taas oo waliba loo geysto sida la sheegay rag iyo dumar oo maxaabiis ah oo Falastiiniyiin ah. dhacdadan ayaana waxa ay ku soo beegmaysaa xilli Israa'iil ay cadaadis caalami ah kala kulmayso beesha caalamka iyo ururada xuquuqul insaanka. waxaana dabcan sidoo kale dhacdadani ay dib u xasuusinaysaa dadka reer Falastiin in tiro dhowr jeer oo hore oo maxaabiis tiro badan ay sheegeen in ay xabsiyada Israa'iil kala kulmeen jirdil iyo tacadiyo ka dhan ah galmo. adiga daawanaya sidee ayaad u aragtaa in maxaabiista Falastiiniyiinta ah ay Israa'iil xadgudub galmo ah u geysato? halka hoose ee commentiga inoo reeb aragtidaada. mahadsanidin.